السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دكتور محمد عرالة كان مد أحد دكاترة إسبيتال كدلمر خاصة قيبة كلية هي كلية سفينته. أنا دكتور كتخصصي داوين عذرات كلها كلية. أنا كفاية سنة مناسبة أفريقيا 8 نوفمبر مالنتا سكروجا أما معانك أدونك waxaan rabaa inaan bulshadeena Soomaaliyeed ugu faa'iideeyo ama aan ka wacyigeliyo dhibaatada ay u leedahay sokorta kaliya. Sidaan ognahay bulshadeena la nool xanuunka sokorta waa xanuunka ugu badan ee hadda dalkeena dhibaateeya kaliyaha kaasoo ku sababa ummadda Soomaaliyeed ama qof kale oo kasta oo sokor qaba ee ku nool dalka in kaliyahooda shaqada ay joojiyaan sabab la xiriira macaankaas aan controlnayn awgeed ama sokorowga qofka bini'aadanka uu qabo oo aan controlnayn awgeed. Dhibaatooyinka sokorowga leeyahay waxa kamid ah ama macaanka in xitaa uu ku sababo qofka inuu jirka ku soo biiro xanuunkaas in loo yaqaan dhiig karka ama pressure-ka. Haddana waxa u sii dheer oo qofka uu keeni kara macaanka inay kaliyaha shaqada yareeyaan taasoo sababaysa in qofku noqdo kaliya dhaqis ama kaliya sifayn wax la yiraahdo in loo bilaabo. sida daraadeed anigoo ka faa'iideysanayo maalinta macaanka adduunka loo asteeyay 14 November waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo bulshadeena Soomaaliyeed khaasatan dadka la nool xanuunka ama qaba cudurka la yiraahdo macaanka inay ka taxadaraan ama ay joogteeyaan ay qaataan dawadooda ayagana ka fogaadaan waxyaabaha dhibaatada gelin kara ama macaanka ku kicin kara dawadoodana si joogto u qaataan dhakhtarkoodana ay la xiriiraan muddo 3 bil kastana loo sameeyo baaritaana ama 6 bil kasto baaritaana lagu ogaanayo caafimaadka jirkiisa oo ay ugu horeeyaan kaliya maadaama macaanka uu saameeyo ama dhibaateeyo kaliya fadlan ka digtoonow xanuunka macaanka yuusan ku sababin inay kaliyaha ku fadhiistaan oo aad noqotid kaliya safeen. Assalaamu calaykum waraxmatullahi Dalmar Specialty and Teaching Hospital. Yegsigeenu waa caafimaadkaaga.